Facebook Ads Library waa maktabad ay shirkadda Facebook ku diyaarisay inaad ka baari karto xogta tartamahaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay tartanka ka jira suuqa ganacsiga. Sidaan ka warqabno suuqyada ganacsiga Soomaalida iyo adduunka waxaa ka jira tartan u dhaxeeya shirkadaha iibiya badeecooyinka ama productska iyo shirkadaha service-ka bixiya. Saas darteed shirkaduhu waxa ay sameeyaan tartan u dhaxeeya si ay qolo walba u hantaan macaamiisha markaas lagu tartamayo. Mar walba aad tartanka suuqa ku guuleysato micnaheedu waxaa heshay macaamiishii oo dhan, waxaana awood u leedahay inaad samayso dhaqaale fara badan maadaama dadka macaamiisha ah oo dhan adiga ay kugu soo xirmeen. Sidaas darteed si aad ugu guuleysato tartankaas waxaa jira technique iyo xeelado la isticmaalo oo shirkaduhu inta ugu badan ay isticmaalaan. Teknolojiyadda casriga ah ee aaladaha social media maxay ka caawin karaan in tartankaasi aad ku guuleysato. Siyaabaha ugu muhiimsan ee tartanka lagu guuleystan waxaa ka mid ah marka ugu horeyso inaad taqaano competitor-kaaga ama cidda kula tartamayso waa inaad taqaano. Haddii aadan garanaynin cidda kula tartamayso waxaa hubaal ah in tartankaasi aad ku fashilmayso ama in lagaaga badinayo. Sababtoo ah haddii aadan garanayn cidda dagaalka kugula jirta, cidda mar walba ka fikirtay inay horumar fara badan ka samayso ganacsiga ee rabta in adiga mar walba productiga iyo badeecada ay iibiso ama service-ka ay iibiso wax ka tayo badan oo ka faa'iido badan inay soo saaraan, cidda rabto haddii aadan garanayn tartankaasi waad ka hari doontaa. Saas darteed si aad u ogaato cidda adiga competitor-ka ama tartanka kugu ah ama kula tartamaysa waxaa marka hore lagaga baahan yahay kow inaad taqaano cidda kula tartamaysa. Cidda kula tartamaysa siyaabo kala duwan oo loo ogaado ayaa jirta. Sida ugu muhiimsan ee loo ogaado waxaa ka mid ah inta ka baarto social media gaar ahaan Facebook-ga ayaa kaa caawin kara ama kuu diyaariyey bar ay ku kulmayaan ama aad ka baari karto dhammaan dadka adiga badeecada ama service-ka aad iibiso oo kala iibiya. Halkaas ayaana ka ogaan kartaa badeecooyinka ay iibinayaan, noocyadeeda, qiimaha ay iibinayaan, xitaa waxaa ogaan kartaa ereyada soo jiidashada leh ee macaamiishooda ay ku soo jiitaan. Taasi waa faa'iido fara badan oo ay ku diyaarisay shirkadda Facebook. Waxaa la yidhaahdaa barnaamijkeeda waa Facebook Ads Library. Facebook Ads Library waa maktabad ay shirkadda Facebook ku diyaarisay inaad ka baari karto xogta tartamahaada. Waddan walba uu joogo iyo magaalo walba uu joogo iyo nooc walba oo badeeca uu iibiyo, haddii aad u baahato inaad ogaato magaciisa iyo xogtiisa iyo taleefankiisaba si fudud ayaa ku heli kartaa. Haddaba sidee ku ogaan kartaa xogtaas ulan? Marka ugu horeyso annaga oo meel dheer tegin ayaa waxaa isla tegi doonaa Google-ka, kadibna waxaan ku qori doonaa waxa la yidhaahdo facebook.com/ads/library. intaas markaan qorno ayaa waxaan leenahay enter. Laakiin waxaa qasab ah marka ugu horeyso in qaybtan library-ga marka aad wax ka baarayso in Chrome-ka uu kaaga furan yahay waxa la yidhaahdo Facebook-gaada ama Facebook business-kaada waa inuu kaaga furan yahay Chrome-ka aad isticmaalayso. Haddii uusan kaaga furnayn marka hore Facebook-gaada furo, kadib waxaa halkan ku qortaa facebook.com/ads/library. halkan ayay shaqadeena ka bilaaban doontaa. Waa ad library. halkan marka aan joogno qaybta fiiri search ads xayeysiin raadi. maxay tahay xayeysiinta raadinayno? Xayeysiinta raadinayno waxay tahay cidda nala tartamaysa ee suuqa nagula jirta ee culeyska badan nagu haysa inaan ogaano magacyadooda, dadka ay yihiin, magaalooyinka ay joogaan iyo waxa ay xayeysiinayaan, qiimaha ay iibinayaan iyo waxyaabaha la midka ah. Marka si aan u ogaado haddii aan rabo inaan adduunka oo dhan ka raadiyo halkaas Soomaaliya ay ku qoran tahay click inta siiyo ayaa waxaan dooranayaa all. Haddii wadamo kale ay tahayna waddanka aad rabtid ee aad leedahay tartamada uu joogaa ayaa halkan ka baaraysa, kadib waddanka aad ku dhufanaysaa. Laakiin annaga hadda waxaan rabnaa inaan doorano Soomaaliya. haddii aan guud ahaan caalamka ka raadinayna all ayaa dhihi doonaa, laakiin Soomaaliya ayaa tartamaheena ka raadinayna. marka halkaas ku dhufano halkaan ayaa tagaya haddana add category halkay ku qoranta ayaa kala ku siinaya. kadib waxaan dooranayaa haddii xitaa siyaasi aad tahay ama aad siyaasad ku jirto ama doorasho la gelayo, cidda markaasi adiga kula tartamaysa iyo meelaha ay waxyaabaha ay xayeysiinayaan halkan ayaa ku ogaan kartaa. laakiin annaga
ma rabno election iyo arrimahaas iyo siyaasad, laakiin waxaan raadinayna waxay tahay ads. marka waxaan ku dhufanaynaa all ads ayaan kili ku siinayaa. marka all ads ku dhufto kadib halkan ayaa qaybta searching ay ku qoran tahay ama keywordska ayaa waxaan ku qorayaa magaca shirkadda aan rabo inaan baaro. tusaale ahaan waxaan baaray oo kaleeto baryahan waxaa tartan xoogan ka jira shirkadaha dentalka ka shaqeeya ama ka shaqeeya ilkaha iyo waxyaabaha la midka. marka waxaan leeyahay dental care oo kaleeto. dental care macnaheedu waxaa waaye daryeelka ilkaha shirkadaha ka shaqeeya ayaa raadinaya. laakiin ogow halkaas waxaan ka raadinaya, halka aan ka raadinayo waa Soomaaliya. marka halkan waxaa iga soo bixi doono dhammaan shirkadaha ilkaha ka shaqeeya ee xayeysiintoodu ay Soomaaliya soo gaartay ama Soomaaliyaba ka shaqeeya. waxaa awood u leeyahay inta in ka badan inta raadiyo inaan halkaas inta ku dhufto filterka oo aan halkan languageska klik siiyo ayaa waxaan dooran karaa Soomaaliya ama Soomaali. luqadda wax lagu xayeysiinayo waa Soomaali. haddii English wax lagu xayeysiinayana English ayaan dooran doonaa, laakiin Soomaaliya ayaa dooranaya. kadib inta ka soo laabto ayaa waxaan ku dhufanaya halkaas adska inta ku dhufto waxaan raadinaya halkan 24 saac ugu dambeeyey ibar ayaan dhihi karaa. ama inta ka gudbo ayaa waxaa halkan inta ku dhufto platformska laga xayeysiinaya ama xayeysiimaha halkan all ayaa iska dooranaya. all inta badan fiican oo waxay kaaga baarayaan Facebookka, Instagramka, WhatsAppka, Messengerka, meelahaas u xayeysiimaha la soo dhigay aan arki doontaa. kii waxaa halkan aan rabo waxaa waaye waa halkan inta ku dhufto active statuska inta ku dhufto ayaa waxaan dooranayaa active ads. active ads macnaheedu waxaa waaye xayeysiimaha active-ka ah ee hadda shaqeynayo ee dadka anaga tartanka nagula jira. tusaale ahaan waxaan dhahnay anaga waxaa matalaynaa shirkad ka shaqeysa ilkaha, marka waxaan raadinay shirkadaha ilkaha ka shaqeeya oo kale dental care oo kaliya qoray, magacoodana ma qorin. dhammaan marka waxyaabaha ii soo bixi doona ee dental ka hadlo waxay noqon doonaan dadka competitorska igu ah ama nagu ah ee ganacsigeena la rabo inaan markaasi la tartamo. marka halkan ku dhuftana faa'iidadu leedahay waxay tahay wuxuu ku baari doonaa 2018 ilaa 2023. laakiin anaga waxaan rabnaa inaan dhahno 2023 aan nooga bilaabin, waxaad nooga bilowdaa 2023 halkan nooga bilow. marka waxaa waaye sanadkan ayuu kuu soo bandhigi doonaa. kadib waxaa leenahay apply filter ayaa ku dhufanaya. marka hadda wuxuu ii soo bandhigayaa dhammaan xayeysiimaha la xiriira waxa la yiraahdo dental care-ka. hadda inta waxaa ku qoran shirkadda la yiraahdo Hayat Dental Care, Blue Star Dental Care. Blue Star waa kana mar kale. marka waxyaabaha ogaa karno waxaa ka mid ah sidaan hore kugu soo sheegay magacaas shirkadda tartamaha nagu ah. waxaa ogaa karaa ereyada ay macnaha isticmaasho si dadku soo jiidato. waxaan ogaan karaa taleefankeeda. marka aan ku soo dhufto halkaan ku dhuftana waxaan sii ogaa karaa detailka oo dhammaan waxyaabaha faahfaahinteeda halka ay ku taalo iyo xogteeda dhan waa ogaan karaa. marka sidaas si lamid ah ayaan u baari karaa dadka macnaha ama waxaa kaloo tartamaha igu ahay. waxaa kaloo sidoo kale baari karaa waxa la yiraahdo hadda dental care baarnay ama ilkaha baarnay. waxaa baari karnaa oo kale shopping center oo kaleeto ama qolooyinka shoppingka iibiyo shopping ama online shop. baryahan online e-commerce-ga dadku dhalinyaradu inta badan ay isticmaalaan. marka waxaan leeyahay online market and online market markaa macnaheedu waxaa waaye shirkadaha online market ka shaqeeya ee Soomaaliya ka shaqeeya ayuu ii soo bandhigi doonaa ama ay u raacsan tahay ereygaas online market ama wax ku xayeysiiyey erey la mid ah. marka halkan waxaa ii soo bixi doona dhammaan shirkadahaas ay jooga. haddii aan rabana inta badan waxyaabaha wax soo saara waxaa ka mid ah hadda markaa imaano fiiri halkan waxaa noogu qoran Higso online market, hoos noo soco waxaa halkan noogu qoran waxaa ku qoran Kulmiye online market, Sooyaal online market, waxaa halkan ku qoran Sareedo online market, Diamond online market iyo Bukidnon online market. Soomaali maana u malay Aaron online market, Kobac online market iyo waxyaabaha la midka ah. Milicsi online market waa kana waa shirkad walba oo markaas ereyga aad raadinayso la xiriira. marka adiga waa taqaanaa tartamayaashaada
haddii e-commerce aad ka shaqeyso halkan ka baar, halkaas ayaa ka helaysaa. haddii aad baarayso haddii aad iskuul tahay tusaale ahaan online education aan leenahay ama online school markaan dhahno online school markaan baarno iyadana iskuulada online-ka wax ku dhiga ayaa halkan ka ogaan karaa. iskuulada online-ka wax ku dhiga ayaa sidoo kale halkan ka ogaan karaa. marka micnaheedu waxaa waaye Addis Library wuxuu kaa caawinayaa inaad si fudud ku heli karto dadka tartamaha kuga ah ama dadka adiga kula tartamaya ama shirkadaha kula tartamaya si aad uga guuleysato tartanka. micnaheedu waxaa waaye xogtooda mar walba aad ogaato waxaa fududaanaysa inaad wax ay iibinayaan wax ka taya badan inaad keento. haddii xog intaan ka badan aad uga baahan tahay Facebook iyo waxyaabaha la xiriira, waxaan diyaarinay koorso professional ah oo aan waqti badan ku bixinay si aan ugu soo bandhigno dadka daneynaya koorso qiimo leh oo wax badan ay ka faa'iidi doonaan. koorsadaas ayaan idiin diyaarinay. haddii aad daneynayso waana la soo xiriiri kartaa. boqolkan halkaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo.